shalay markii raggu soo dhaawacmay oo nimankii 8 nin meesha lagu dilay oo raggii aan xisaab lahayn dhaawacmeen oo dhaawac la soo qaaday diyaaradda qaadi lahayd buu lama qaadi karo. xasan shalay waxa lahayd diyaaradana lama qaadi karo dhaawaca oo meel lama geyn karo. maantana waxaan leeyahay Puntland baan garab taagnahay. eelka kii dhigay weergootoy waxa cidi ka dhageysan mayso ama hadal ama hadlin wiilkan tii toobta oo la yiri wasiirka gaashaandhiga way oo tii toobta ahaan jiray oo leh dawladda waa habale Mareykanka waa habaleeyna Mareykanka hadaan nukanayso orod gurigiisa aad ku soo dhunko. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما أنا ومضى دولة ضعفية ذيك الدعوانيسة وحكو السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلطان حقودر ووحد اللي هواري ميسيدة وركاهرو وحن ربعنا كهد وارما يريروغان ما نلويد مغلاهي وكساب سنبوت اللان يفضل الكي وحيالا نوعاس بوت اللان وقولي ستي بوت اللان قبني ميقادي بوت اللان ciidamada nin walba leh oo meesha tagay oo u badan reerka daaroodaan cidi ka maqnayn sidaan qiyaasayo nin afka ka hadlaya nin xabada rida iyo nin ariga geeye iyo nin niman joogin ma jira waxaan leeyahay ciidamada iyo dadka ka qayb qaatay hambalyo inta kadib waxaan rabaa xasan maan rabaa dhagihiisa afkiisa inuu ismaqashiyo xasan xala waxaan maqlaayay isagoo wuxuu leeyahay Mareykanka annaga la hadalay annaguna soo maray annaga amarka siinay annaga saa yeelay toban bari ka hor wuxuu lahaa nimanka buurta ku diranaya waa niman ilmaadeera oo labada reerba wax daacish la yiraahdo ma jiraan laba reer oo qabiila ku diranaya ninkii shalay saalaha maanta wuxuu leeyahay waxbaan meel u diray inta waxa raaca oo ka daran shalay markii raggu soo dhaawacmay oo nimankii 8 nin meesha lagu dilay oo raggii aan xisaab lahayn dhaawacmeen oo dhaawac la soo qaaday diyaaradda qaadi lahayd buu lama qaadi karo. xasan shalay waxa lahayd diyaaradana lama qaadi karo dhaawaca oo meel lama geyn karo. maantana waxaan leeyahay Puntland baan garab taagnahay. eelka kii dhigay weergootoy waxa cidi ka dhageysan mayso ama hadal ama hadlin wiilkan tii toobta oo la yiri wasiirka gaashaandhiga way oo tii toobta ahaan jiray oo leh dawladda waa habale Mareykanka waa habaleeyna Mareykanka hadaan nukanayso orod gurigiisa aad ku soo dhunko. annagu kaagama baahneen hambalyo kaagama baahneen garab istaag marbo ahaa Puntland waad xuriyaamisay lacagteedii baad xanimateen oo qaadateen waxay xaq u lahayd baad guriga ku dhisatay iyo qabriga ku qodatay waxay xaq u lahayd oo hub iyo saanad iyo adigi system ciidan ahaa oo dhan baa gurigaaga iyo reerkaaga u qaybisay laguma oran karo waa madaxweyne ninkii madaxweyne ku yiraahdana waa ka liita Puntland waxaan leeyahay waarmay sida warakaaro isu tashi gobonimadaas lagu gaaray isu tashiga wiilal ku kace wiilal hayn jireen haata soo yimid habeenada hore hameedeedii haba isku hodoy baa leeyay wiilashi u dhashay qarka iyo dhulka u dhashay oo buuraha u dhashay oo guriguru wiiqin waa kuwa sidii galeedku ugu daadanayo guri god walba ay ku jiraan hambalyo gobonimo baan leeyahay gobonimo xasan waxaan leeyahay xasan oo waxa kana akhriyay laamus dadku kula yaabin ummaddu ay kugu qoslin ninka madaxweyne u tahay ninka wuxuu dooranayso iyo ninka nin cod haysan adiga garanaya annagu mar hore baanu ka samiray xasan intaasaan leeyahay xasan waxaan leeyahay madaxweyne noqon maysidee baa la noqon madaxweyne waa ka tagtay baal dadka cunaha noqon qabuurtii baa dadka kala soo baxday qabuurihii baa qodatay magacdii dawladda iibsatay kuwa xamar joogay baa muusanaabaya oo qeylinaya cabdi qaybdiid wuxuu ku hadlaayay saaka wataa maqlaysi ninka doorashada u qabanayso adaa yaqaan annagu kula nidaam maahin annagu kula shaqo maahin xamar kuwii kula joogay baa kaa shahaadanaya iska daa gobollo kale taa wax qabatay
بلان ما كفتنته قري هذا لو ما كفتمه ويلشي بلان ولا شيء وأكوا ذلك ببناية وأكوا يستشي وحاكون مي قالوا لنا ده يجعل حريرة وعركتي ضد حق بسنة أو نظيف وعلى الله ده قال ما مركي أركين يهين وأكوا ديار دي وضغينايا مدحويني لا هاي مدحويني بالله الحريرية أديك حسن دكت هذا يافكا اسمه شيء داو على ما قاعد كرو نمن كدير رايا ولا من اسمه قبيلة ما أنت أنا وقرب تاجناي ورد نيو أديك واحد كوجو فيلن أديك هذا الواحد كوجو فيلن كلي بدأ وابن بمر لك يعني وحي لقى ضوي وكيت كواه هكو ورين نيك الدولة كاسوغاية نيك الدنيا كاسوغاية نيك قيمة كاسوغاية كاليتا حصل انت حصل له خير بدنا وعليه وليبا ريرك اللي يراهdo علي السليمان waxaan leeyahay dhimasho badan baa imaanaysa ninkii gurigiisa lagu diriro oo dagaalku ka bilowdo dhimasho timaada dhaawac baa yimaada rag la jecel yahay baa la waayaa cadow meel uu ku jiro wax kasta imaanaya u dulqaata dhixda qaabil deeqay Allah duuban baa iman waxa la rabaa inaa karti u yeelataan waxa la rabaa inaa calood u yeelataan waxa la rabaa inaa u yeelataan nidaam iyo karti iyo hufnaan inay idinka muuqato مع تابو جيسو هو معاضيقا رجل جعليها لوايا قبل لوايا كوغي ملا لوايا أسكر ويلا ودي سما لوايا هذا يروح حبض الاسكول السايا وانا من عدوه وليبا عالم ورن فراك تاغي بالله دريا دبت كتم هذا على طول غاتو وحليه هاي وعربا على كرنا كدره أرني روح علي سلطان علي سعيد عول سلطان علي سعيد عول وحلاه همبليو اسمدي نبضوندي ومدي كلو aamusan oo TV-giisa rakibtay siday ahayd buu uga hadlay war sida cali u hadlo garab siiya war dhiman maysaane cali boosaasu idin la joogaayo waa suldaan wiilka saa u hadlaya naftaasi daan buu sidaaye nimanka koofiyada weyn oo guriga ku gabanaya oo nafta ka doonaya nin qarka ajira baan ka baqaya oo ama ka sugaya adeer hadla oo ciidanka garab istaaga oo tuutaha qaata oo qorigiina qaata oo dagaalama xoreysta dalkeena xoreysta magiciin baahi aamusnaanine isimada kale oo wada aamusan oo aan jooro waayay oo sida cali baa idin bilaabay war cali baa idin bilaabay cali ku dayo cali siciid awr ku dayo bay taagan tahay nimayo waxaan leeyahay dad iska dhiga dadka buura lagu dagaalamayo oo tabarta daran oo aan guuri karin oo geediga iyo waxay ku guuraan iyo la haysan waxa laga yaabaa kuwa in majbuur lagu haysto khasab oo la yiraahdo guudhan ma maanudina dhaxayna ila cadu meel agdaga yihiin dadka shacabka ay ganacsatada iyo dhaqaatiirta iyo ummadda Puntland reer Puntland ha u gargaareen dadka ha loo gargaaro gurmad la gaaro ha loo riyo ninka guuri waaya hala raro ha laga warhayo hala dhaqaalayo wixii dhintay oo dhaawacmay iyo wixii tagayna Ilaahay u naxariisto waxaan noolna Ilaahay caafiyo intaasaan leeyahay waxaan ku darayaa ciidamada wali nin la yiraahdo Gaacshe oo askarti Cabdullaahi Yuusuf ahaa oo ragii xamar wax ka xoreeyay ahaa oo ninkaasi nin sarkaal ah oo gorilla ahaa niyow kama muuqdo ciidankii ninkii ragga waxgalka ah oo buura yaqaan oo gorileynta yaqaan oo nidaamka yaqaan warka haysta waragga halala loo soo ururiyo gorilaha ragga laga maarmi karin ninka waxaan rabaa inaan ciidanka ka dhaxarko ciidanka ciise kuma arag ciidanka dawladda kuma arag ninkaasi xagee jira meeyay ninkaasi ninka adani iyo madaxda iyo mooyeen isuqoon waxa leeyahay odaga hoggaanka ciidanka ka muuqdo hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa halka waxa ku diranaya wiilal Soomaaliyeed oo nin walba leh arti leh daarood leh nin walba leh nin qalbiga ka dirira nin afka ka dirira nin clipka ka dirira nin media ka dirira nin xabada ka dirira dagaalku meel kaliya ma dagaalku waa niman joogin ma jira ragaas oo dhan waxaan leeyahay hambalyo galan baan maqlaayo wuxuu leeyahay reerka dhaawacmay iyo reerka saa yeelay iyo reerka wax saasi ku dhaceen iyo reerka bala
قالنا واجد ملك وتلينيسي كوي سودا وعمي واحد لك عرني كوي هذيك جنجلك يرنا يا لغلا وملها تاجن هذا وحقبنا يسوع حسن أكتيسا كمش حردني بدلان رق بيليضها يا ربي ما أنت الرق وترسن متهيد صومالي واكل بحضي وحسوق جرا مجران وحفظر الله يرادا مجران حمرنا وحك جرا مجران نقول بشقافتي سوقاتي نقول بقولي سباد أحمد بوضا واركتين قال مذوق واتا غير ليس بينما وقوع حيسا بدلان وايه هوريك تكتي قالك النيو وحلا يسكوها يا مجران أنا قلنا وحلا يا صومالي هتا شتو مقالة مدحضانا لقى وريجيا مقدشو ميل صومالي السوق إيمان كردو أو قيمة له أو شرف للقي صومالي waxaan ku soo ururinayaa waari meyside warakaaro adaan ku kordhaa gaba u mooyee ku tarin garaad iyo waayarag ila wax ma dhaanto geed waxaan leeyahay maandheero wiilasha dagaalamaya guuleysta gabdhaha burka soo dubaya oo hilibka jarjarka goynaya oo xoolaha qalaya oo meel walba ka soo gurmaday xogaa Puntland si bay u habacsan tahay كاكا وسنانتا كاكا فديغا وريغينا لجريا كاكا فديغا dadka la rabo inay meesha ugu horeeyaan oo gabdhuhu ugu horeeyaan oo wiilashu ugu horeeyaan oo odayaashu ugu horeeyaan oo labadoonadu ugu horeeyaan waa Puntland waliba waa reerka la yiraahdo waa ka soo jeedo oo aan suldaanka u ahay Ali Salman ka meesha qad qorigayo sarabka hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa hala dulqaato rag badan oo aynu jecelahay baynu waayeynaa xaasas baynu waayeynaa dhibaataha garab haraati badan baynu ugu dhacaysaa laakiin dal xora baynu u tegaynaa dal xora oo xariira oo ninkii xiji guran jiray xijigiisa gurto oo buuraheeda iyo macdanteeda la gurto oo dalkii nadiif yahay oo ninkii kalluumaysan yar xor kalluumaysto oo aan rida wiil yar oo afka duubtay oo oromay baad ka qaadeen orom usan baad ka qaadeen baa la gaaraya waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni waxaan leeyahay madaxweyne dhexda xiratay sidaa dhexda u xiratay oo cadowga ugu bareedhay oo raganimadaada iyo dadnimadaada isugu tashatay isu tashigaasaan waxaanu ka rabnaa inuu goortii waxaas dhamaadaana dadka isu tashiga ku wado saraakiisha dagaalka ku jira oo ciise u horeeyo oo uu ku xigo ninka la yiraahdo saraakiisha badan ku xigaan oo ayuu ku xigo oo gudoomiyaha ku xigaanka baarlamaanka ku xigo oo ninka la yiraahdo Xaaji Bakiin gudoomiyaha abniga ku xigo waxa leeyahay hambalyo guul ba taagantiin guuleysta geesaanu dadka taaganahay waa idin la joognaa qoriga anaguna dhigtaanu haysanaa yaa maali jiray bay taagan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.